kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan u diyaargaroobayna daawataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka intiisa kale waa 25 bisha February 2020 maantana qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland ee ka soconaya Laasqori iyo qasaraha ka dhashay ee warbixin badan kaga ayaa Axmed Madoobe waxa uu wadaa baabulkii ugu dambeeyay ee uu doonayo inuu ku qabsado magaalada Bu'aale oo noqotay meel ku tartamaan dawladda iyo Jubbaland al-shabaab dil iyo gowrac ay isku dareen mas'uuliyiin ka tirsan degmada Baardheer ee shakhsiyaadka la dilay kuwa la gowracay magacyadooda Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud oo hal arin isku khilaafay oo ku saabsan caleemasaarka Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweyne Qoorqoorna waxa uu damacsan in Afgambi uu kala wareego dhuuso Mareeb iyo guud ahaanba Galmudug waxa kaloo qaybka Mareykanka si kulul ayuu kaga falceliyay ciidanka dawladda federaalka ay ku dadgureynayso gobolkaasi Gado kamid noqon saaxiibada joogtada ah ee halkan ku xiran ee hela macluumaadka wararka aan soo gelino waxaan ka hormari doonaa warbixinta la xiriirta dagaalka ka soconaya Laasqori ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya ciidanka Soomaaliland iyo kuwa Puntland oo saakay ururnimadii hore ee qaybo kamid ah degmada Laasqori oo ka tirsan gobolkaasi Sanaag ku dagaalamay ee waqooyiga Soomaaliya dagaalkan muddo kooban socday ayaa waxa la sheegay in labada dhinac ay isweydaarsadeen hubka noocyadooda kala duwan isla markaana uu jiro qasaaro soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay wararka ayaa sheegay in dagaalku uu dhaxmaray ciidamo kala taabacsan gudoomiyaha gobolkaasi Sanaag ee dhanka maamulkaasi Puntland Cali Xuseen iyo gudoomiyaha degmada Badhan ee maamulkaasi Soomaaliland Maxamed Xamuud ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhimatay dagaalka ayagoo ay ku dhaawacmeen 3 kale oo kamid ah dhinacyada dagaalamay waxaan la sheegay dadka dhaawacmay in la kala geeyay xarumo caafimaad oo ku kala yaala labada dhinac sidoo kale ila deegaanka waxa ay noo sheegeen in wali jirto cabsi kale ku saabsan in dagaalku uu sii fudo isla markaana laga cabsi qabo in dagaalku ku baaho qaybo badan oo kamid ah gobolka Sanaag dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo waliba abaabul iyo gurmadiyo kala duwan ayaa soo kala gaaraya dhinacyada halkaas ku dagaalamay Laasqori ee maamulka Soomaaliland iyo Puntland Soomaaliland iyo Puntland oo isku haysto gobolada Sool iyo Sanaag oo ku yaala waqooyiga Soomaaliya ayaa marar badan hore waxay ku dagaalameen deegaano hoostaga labadaas gobol gaar ahaan Tukaraq oo kamid ah meelaha ugu badan ee dagaalada ka dhici jireen inkastoo dagaaladaasna xal laga gaar ayaa la sheegay in hadda ay suurtagal tahay in mar kale dagaaladaas ay soo cusboonaadaan ayna dhici karto in ay dhinacyada abaabul halkaas ay ka wadaan dagaalku mar kale dib u qarxo wixii macluumaad ay ku soo kordha xaaladda Laasqorina wararkeena dambe Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland abaabulkii ugu dambeeyay ayuu ka wadaa gobolka Jubbada Hoose asagoo doonaya in dagaal uu ku qabsado Bu'aale waxay noqotay magaalo ay ku tartamayaan dawladda iyo Jubbaland madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xalay ku hoyday degmada Dooble ee gobolkaasi Jubbada Hoose waxaana la sheegay in kulmo kala duwan halkaas kula qaadanayay saraakiisha militariga halkaas ku sugan kulankan oo mid xasaasi ayaa waxa looga hadlay dagaalka al-shabaab gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soconaya gobolka Jubbada Hoose ila ku dhow kulanka waxay noo sheegeen in diiradda la saaray sidii dhawaan loo qabsan lahaa degmada Bu'aale oo caasimada Jubbaland taasoo gacanta ugu jirta ururka al-shabaab sidoo kale wararka ayaa intaa waxay ku dareen in Axmed Madoobe saacadaha soo socda uu kormeer ku tagi doono xarumaha ay ku sugan askarta si uu qiimeeyo xaaladda guud ee halkaas ka jirta Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay xoojisay dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka wado gobolada Jubbooyinka oo uu culays badan markaan ay kala kulmayso dhanka dawladda abaabulkan hadda wada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku soo aaday iyadoo muddooyinkii dambe dhaqdhaqaaqyo militari ka soconayeen deegaano iyo degmooyin dhowr oo kamid ah gobolka Jubbada Hoose Bu'aale waxa ku tartamaya dhinacyo badan oo qaybka dawladda federaalka Soomaaliya qudhid waxay wada qorshe ku saabsan sidii Bu'aale ay maamulka Axmed Madoobe kaga hormari lahayd hadii ay dawladda Soomaaliya Bu'aale gacanta ku dhigto waxa suurtagal ah in halkaas loogu dhawaaqo maamulka dhana Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waana sababta keentay in Axmed Madoobe durba uu sameeyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku aadan arintan haddaba dhanka kale waxaan eegi doonaa isla Baardheer wararkeeda ayaan u gudbi doonaa halkaas waxaa dil iyo gowrac bal isku daray mas'uuliyiin caan ah oo xilal ka hay degmada Baardheer ee gobolkaasi Gado yaa kamid ah magacyada ayaan helay
wararkan ka soo gaaraya gobolkaasi Gado ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay dagaalyahano ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay dilal qorsheysan ay ka geysteen gudaha degmada Baardheer ee gobolkaasi Gado. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay gudaha u galeen qaybo ka mid ah magaalada Baardheer ayagoo guryahooda kala baxay ilaa 3 gudoomiye laameed oo ka tirsan mas'uuliyiinta maamulkaasi. wararka qaar ayaa sheegay in raggan hubeysan ka tirsan Al-Shabaab ay markii dambe toogasho ku dileen 2 ka mid ah gudoomiyaashaasi halka midka saddexaadna ay gowraceen sida ay noo xaqiijin ila deegaanka oo lagu kala soonaan karo. magacyada mas'uuliyiintan la dilay ayaa waxaa lagu kala sheegay Cabdi Santuur oo ah gudoomiyaha laanta Buulo Kuuley, Jibriil Maxamed oo asna gudoomiyihii hore ee laan ka mid degmada Baardheer iyo Carab oo asna ahaa laanta Dabaqore la yiraahdo ee isla kamid degmada Baardheer ee gobolkaasi Gado. ilaa hadda ma jirto faahfaahin dheeri ah oo maamulka gobolka Gado iyo sidoo kale kan degmada Baardheer ay ka bixiyeen toogashadan iyadoo dagaalyahanada xarakada Al-Shabaabna ay fuliyeen dilkan ayaa halkaas iskaga baxsadeen. dhinacyadan ayaa saakay waxay sidoo kale ay si aad kaga hadleen arrintan waxaana jirta cabsi kale soo wajahday mas'uuliyiinta Baardheer oo ku saabsan in Al-Shabaab ay halkaas mas'uuliyiin kale ay dilaan. gobolkaasi Gado oo dhaca koonfurta Soomaaliya ayaa ah meelaha hadda wali ay ku xoogayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab weerar gaadma ayay ka fuliyeen gudaha gobolkaasi. ma jirto wax warar ka soo baxay dhanka maamulka Jubbaland oo ku aadan qorshahan waa dhanka dowladda federaalka oo gacanta ku haysa degmada Baardheer. Mareykanka si kulul ayuu kaga hadlay dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada ay ku dadgureynayso gobolkaasi Gado. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa shalay kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya kaasoo ergeyga gaarka xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan iyo waliba isku duwaha siyaasadda Mareykanka ee u qaabilsan golaha ammaanka ay jeediyeen khudbado ay kaga warameen xaaladda siyaasadeed tan dhaqaale midda amni ee ka jirta gudaha Soomaaliya. isuduwaha siyaasadda Mareykanka u qaabilsan golaha ammaanka ee dhanka Afrika ama Soomaaliya Royd Hongris ayaa si kulul kaga hadlay xaaladda gobolkaasi Gado iyo waliba ciidamada dowladda federaalka ay ku daabulayso magaalooyin ka mid ah gobolkaasi. Royd waxa uu sheegay in sanadka 2020 Soomaaliya uu yahay sanad aad u adag maadaama ay doonayaan in xal laga gaaro deen cafinta doorashooyinka qaranka la qabto iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay loo wareegi lahaayeen amniga maadaama AMISOM ay dalka kala baxayaan. wuxuuna sheegay in tahay sanad aad u adag wuxuuna sidoo kale soo hadal qaaday in dowladda federaalka Soomaaliya khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo in ciidamada xukuumadda Soomaaliya muddooyinkii dambe ay ku daabulayso ama ku dadgureysay gobolkaasi Gado. wuxuuna sheegay in qatar amni ay ka imaan karto ama dagaal military. ciidamada militariga dowladda Soomaaliya ee siyaasadda ayaa loo adeegsadaa waxaana la geeyay gobolkaasi Gado mana ahayn in ciidamada siyaasad loo adeegsado ayuu yiri Royd oo ka hadlay kulankii loo dhayaa golaha ammaanka qaramada midoobay. waxa kale oo uu sheegay in mas'uuliyiinta ciidanka dowladda iyo waliba kuwa maamul goboleedyada dalka aysan ahmiyad badan ay siin dagaalka Al-Shabaab oo aan la dagaalamin. waxaa madaxweyne Farmaajo ugu baaqayna inuu soo afjiro duulaanka ay ciidanka dowladda federaalka ay ku qaadeen gobolkaasi Gado asaga oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ay xal dhab ah oo wada ogal ay dib u heshiisiin in lagu dhameeyo khilaafka ayuu yiri Reid oo khudbad ka jeedinaya golaha ammaanka. waxaa kaloo Mr. Reid uu sheegay in horumar walba oo laga gaaro dhinacyada amniga siyaasadda deen cafinta udub dhaxaad ay u tahay iskaashiga ay dowladda federaalka la leedahay maamul goboleedyada. waxaa kaloo uu sheegay in Mareykanka uu aad ugu walaacsan yahay khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo muddooyinkii dambe sii xoogeysay. wuxuuna sheegay in xalinta arrintan ay kala hadleen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xalin laga gaaro khilaafkan. dhanka kale waxa uu bogaaday dadaalada uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu wado ku saabsan isku soo dhaweynta dowladda iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada. wuxuuna si gaar ah carabka ugu dhuftay arrinta ku saabsan Galmudug ee xalka laga gaaray iyo sidoo kale kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi oo ah kulan kale oo muhiim ah. uu sheegay in labada dhinac isku soo dhawaadaan ay tahay arrin kale oo fursad u ah Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa sheegatay in ciidamo badan ay geyso gobolkaasi Gado ayna doonayso in lagu ilaaliyo ammaanka xuduudda Soomaaliya iyo Kenya inkastoo beesha caalamka markan dhaleeceyn badan ay kala kulmayso. hal iyo laba warbixinada kaare wararkeena arrimaha Galmudug ayaan eegi doonaa. xog culus ayaa kaga hayaa Sheekh Shaakir Macalin Maxamuud oo isku fahmi waayay hal arin oo muhiim ah talo waa tahay
sheekh maxamed shaakir iyo weliba macalin maxamuud oo kamid ah hogaanka sare kooxda ururka Ahlusunna ayaa xalay shir ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb waxayna isla meel dhigeen in xilliga ay dhici doonto xafladda caleemasaarka madaxweyne sheekh shaakir iyo qaabkii u dhici doonto ila xogogaal ah ku dhow labada mas'uul ayaa inoo sheegay in isku fahmi waayeen sheekh shaakir iyo macalin maxamuud xafladdaasi iyo cidda loogu yeerayo inay kasoo qayb gasho sheekh shaakir ayaa soo jeeday in xarunta inji lagu qabto xafladda caleemasaarka wuxuuna u sababayay xaaladda ammaan jawiga uu noqon karo mid aad u wanaagsan maalintaas ay tahay maalin si weyn loogu taxadiri karo qalalaaso dhaca in la carqaladeeyo xafladda sheekh shaakir macalin maxamuud ayaa isla dhankiisa soo jeeday in gebi ahaanba la iska dhaafo xafladda caleemasaarka maadaama wax kaas aysan suurtagal aysan ahayn oo aysan dhici karin si looga fogaado qalalaaso foodo iyo amni xumo ka dhacda magaalada sheekh shaakir ayaana macalin maxamuud ayaana arrintaasi soo jeediyey laakiin waxaa la sheegay in tallaabadaasi oo aad kaga xanaaqay wadaadka madaxweynaha sheeganaya sheekh shaakir ugu dambeyn qoorqoor qudhiisa waxa uu damacsan yahay in afgambi uu kala wareego Dhuusamareeb iyo guud ahaanba galmudug madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor ayaa xalay casharaf magaalada Dhuusamareeb uu sameeyay saraakiisha iyo taliska qaybaha guud ee booliiska galmudug ujeedka kulankan ayaa ahaa isbarasho dhiirigelin iyo dardargelinta arrimaha amniga iyagoo kulankan goobjoog ka ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya oo gelinkii dambe shalay halkaasi gaaray madaxweyne qoorqoor ayaa mudnaan gaar ah siinaya sugidda amniga asagoo marinaya habka hubinta laamaha ammaanka iyo in sidoo kale awoodda uu xaqiijiyo nabadgelyada Dhuusamareeb ugu dambeyn madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor ayaa kula dardaarmay saraakiisha cusub ee ciidankiisa in daacad u noqdaan guuritaanka waajibaadkooda shaqo maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in si rasmi ah xilka ula wareego taliska booliiska gobolkaasi ee galmudug iyo weliba taliyayaasha kale dhawaan xilal kale loo magacaabay warbixintan ayaa ugu dambeysay saaxiibayaal wararkii maanta aad ka daawanaysan channelka